السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal, kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkan waxa aan rabaa in aan isugu kiin barbar dhigo saddex shirkadood ee ugu caansan ee Soomaalidu isticmaasho. Waa shirkadda loo yaqaano Funding Bibis, Funding Next iyo City Traders Imperium. Marka waxaan isla eegaynaa aniga khibrad ahaantayda iyo sida aan u soo baaray iyo dadka aan la macaamilay ee saddex shirkadood ba isticmaalay iyo cabashooyinka ay soo gaaray iyo feedbacks ay soo gaaray sida ay kala yihiin iyo sida saddex shirkadood ay kala yihiin la fiirinayaa. idinkuna waa commentiga ku soo qori kartaan shirkadaha kaydla fiican iyo khibradaha ka wadaagteen iyo waxyaabaha aad ku aragteen. ka saddex shirkadoodba waa kuwan website-doodii. shirkadda City Traders Imperium waa kan, linkigana waxaan soo dhigi doonaa commentiga koobaad. kanna waa Funding Next, iyadana akoon waan ka qaadanay, tiimkayguna way isticmaaleen, feedback iyo kala duwan way iga soo gaareen, iyagana waxaan kusoo bandhigi doonaa insha Allah slaydkaan diyaarsaday. tani waa Funding Bibis, iyadana waan isticmaalay labadii sano u dambeeyay. dhalinyarada igu xiriirna feedbackyo kala duwan iyo way la soo wadaageen, iyadana waxaan kusoo bandhigi doonaa insha Allah halkan aan kusoo diyaarsaday. marka qodobada halkan bay ku qoran yihiin City Traders weeye ka tani waa Funding Next, rawan kalena waxa weeye Funding Bibis. marka haddii aan isla eegno qodobka koobaad taariikhan iyo khibrad ahaan, shirkadda City Traders Imperium waxaa la aasaasay 2018. marka waxay leedahay waayo aragnimo dheer oo 8 sano ah. Funding Next iyada waxaa la aasaasay 2022. waxaan oran karnaa way cusub tahay ama waa dhexdhexaad. markaas weli khibrad saas ah oo dadka badankooda ay u leeyihiin ama iyaduba leedahay ma jirto. Funding Bibis iyada aad bay cusub tahay oo waxaan filayaa in ay 23 meelaha la aasaasay. markaas iyada khibrad wax saas ma laha. track record haddii aynu eegno suuqyada kala duwan ee City Traders wala tijaabiyay, akoona kala duwan wala qaatay, marka muddada ay ku xiran tahay ay dhisnayd. markaas 2018 waa muddo aad u dheer, marka khibrad ahaan iyo record dheer bay leedahay oo la fiirin karo. Funding Next iyadu wali waa la dhisayaa oo dhisma ku socdo oo maalin kasta wax iska bedela. halka shirkaddan kalena aan wax track record oo dheeraada aan wali laga hayn ama aan la hubin. risk management iyo rules-kooda kala duwan. shirkadaha City Traders ayaan anigu u arkaa in ay tahay macquul risk traders iyo rules-keedu oo marka qofka trader-ka ah magaranaysa friendly ah oo yani rules-keeda risk management-ka la isticmaalayo waa mid u adeegayo qofka trader-ka ah. Funding Next laakiin wayna aragnayo iyada rules-keeda badanka muran bay keenaan oo anigu inta dad aan arkay ama nabana ku dhacday qofka hadduu wax rule yar oo si u magaranaysa tafsiirkeeda ay iyagu si kala u saaraan, markaas muran baa ku jira. ruleska Funding Next, Funding Bib iyadu waa adag yahay, risk management-koodu waa adag yahay. qodobkan kale ee rule-ka ah sida loo fasiranayo City Traders iyada wax fasirada rules-keedu ma laha, yani waxa weeye waa mid cad, yani haddii lagu yiraahdo rule-kaas waa nooca iyo nooca wax kale oo tafsiiri ma jiro. laakiin Funding Next iyadu say doontay mar u dhigtaa badanaa ma aha, laakiin waxaad arkaysaa qof lagu qabsaday margin-ka, qof lagu qabsaday consistency rule-ka iyada oo si kale ay u tafsiirinayaan. shirkadda kale Funding Bibis leeyahay iyada marmar rules dhulka soo kiciyaan oo iyadoo adag tahay, marka rules-ka dhulka laga kicinaya mararka qaar, marka hidden rules baa jira badanka. marka Funding Bibis iyada labadan kale la mid aha, iyadu waxay tahay exceptional bay tahay, way ka duwan tahay oo yani rules-keeda qaar baa magaranaysa aan ku talagalahayn dadka qaar u arkaan oo loogu keena. buyout trust-kooda waxaa ka mid ah lacagahaas oo laga baxo in la isku halayn karo. City Traders waa la isku halayn karaa, target-ka haddaad gaadhid rules-keedu waa caddaan, haddaad rule-ka jabisid ma lihid oo kale tusaale ahaan, marka waa caddaan iyada. Funding Next dadka iga soo gaadhay iyada feedback waa mixed, yani dadka qaar bay rules-ka tafsiir kale u saaraan, qaar bay marka dhowr jeer faa'iidooyin kala baxaan ay dacwada ku soo ogaan. marka waxaa jira xataa Funding Next waxaa jira kole qof wal oo isticmaala wuu jiraa
wayna dhegeysanaya qof badanka waxaa jira qofku haddii uu stepka ka gudbo waxaa jira marar way wax yar ku qabsadaan tusaale ahaan oo kale verificationka kadibna waxay sameeyaan refund bay u sameeyaan marka dadka badankooda refund bay u sameeyeen way arki karaan imika dadkeenu wax yar bay ku yara dhigayaan markay arkaan qofku inuu si fiican u trade garanayo istaraatiijiyad fiican leeyahay ay hubaan account fund haddii u dhiibaan inuu lacago waalan ka samayn doono refund bay lacagtiisa u sameeyaan waxay aan rule noocaasa ba jeysay ama verificationkaaga wax saas ka khaldanaayeen kadibna waxay sameeyaan waxay ka mamnuucaan inuu dib dambe account uga furto dadka ay saas ku dhacday way jiraan kule waad dhegeysanaysaa commentiga kusoo qor insha allah trust hoosay leedahay tani iyadoo funding next funding bib oo iyada dad ay u diideen baaban waa sababahan uga tagnay bay ka mid ahayd dad ay u diideen inay lacag la baxaan ama lacagooda loo diro ayaanu aragnay oo tiimamka ka mid ahaa marka iyaga akooma kama qaadan sababtoo trustigooda aad buu hooseeya IB-ga VPN-ka travelka waxyaabaha noocaas ah si traders u ogoshahay haddaad imka IP addresskaaga bedeshid ama qof kaleba aad u dirtid ba loginkaaga iyo passwordkaaga aad bay u dabacsan tahay oo fududahay waxba lagu qabsan maayo laakiin funding next akoonada ka xidhaa dadka haddii aad maanta akoon kale aad ka gashid ama aad IP address kale aad ka gashid way kaa xirayaan funding bibs iyadoo iska dhexdhexaad scalingka ama akoonkan aad imka iibsatay waxaa la rabaa in markasta faa'iido ka samaysan inta lagu kordhiyo marka si traders iyo si cad bay u kordhisaa magaalada long term baa la haystaa yani wuu socdaa iyada laakiin fund next paperka marka ku qoran tahay unbuu qurux badan yahay yani waa macquul maaha yani scale balaankooda u degsan yani dadka ku guuleysan karaa aad bay u yar yihiin tan ma cadda iyada oo iyada farahan ka qaadnay marka tan waxa aan ka sheegaa badankooda waa wax magaalada xaqiiqa ah oo teamkeega ku dhacay business modelkooda habka uu dhisan yahay profilkooda yaa magaranaysa uu adeegaya marka trader first way shirkadan loo yaqaano City Traders Imperium halka funding next ay tahay iyadu marka hore ay korto oo magaranaysa koritaan iyada isdhisaysa marka badankeeda modelkeeda uma cadda in oo qofka traderka ah uu adeegayo marka tan volumekeeda iyada waa magaranaysa crossmancy iyadoo in la iska ilaaliyo macnaheedu weeyaan marka funding bib aad bay u liidataa baan ka wadaa sumcad ahaan communityga sumcad ahaan ka haystaan professional iyo stable weeye kan mixed opinions weeyaan oo dadku isku dhex jiraan qaar ka caban iyo qaar kale sidoo kale tanna waa la mid ku habboon in aad haysatid waqti dheer tusaale ahaan profilkan haddii aad akoon ka qaadatid waxaad rabtaa inaad mustaqbalka oo dhan haysatid marka challenge-ga gudbisid inaad maalin kasta bil kasta ama week kasta aad lacag kala baxdid marka tan way ku habboon tahay si traders way ku habboon tahay in la haysto waqti dheer sidoo kale fund next iyadana way ku habboon tahay laakiin tan iyada kuma habboona oo yacni long term wax u adeegaya maaha marka iyada ha ku degdegin funding bibs marka intaas waxaan ka arki karnaa oo wixii aan ka soo koobay aniga ay la tahay adigana kale si kale kula muuqan kartaa anagu waan tijaabinay saddexdaba laakiin imka Traders Imperium ayaan u xubsiibanaa funding next laftiisa waan kala shaqaysanaa dhalinyarada laakiin waxaan kula taliyaa City Traders haddii aanu qaadan karin oo akoonada qaar aanay magaranaysa u caddayn in uu funding next uu qaato laakiin funding bib in uu iska ilaaliyo maadaama ay jiraan dhalinyaro badan oo annaga naga tirsan oo qaar loo diiday payout-kooda bilaa sabab ama rule dhulka laga soo kiciyay halka commentiga adigu waad nagula wadaagi kartaa wixii khibrad aad u leedahay saddex shirkadood waxay rabnaa in qofka Soomaaliga ah Soomaaliya jooga ama wadamada kale ee dunida jooga in uu haysto hal shirkad oo ku kalsoon yahay dadkii ka horeeyay lacag kala baxeen dadkii ka horeeyay ruleska lagu qabsaday cad yihiin wax waliba ay cad yihiin maaha qofku inuu lacagtiisa ka geliyo waqti uu ka galo uu baasiyo kadibna uu khasaaro kala kulmo marka waxaan rabnaa dhamaantiin in commentiga noogu qori doontaan wixii idinka khibrad ah ka aragteen saddexda shirkadood tan baan imka aad isticmaalnaa qiimo dhimis bay ku jirtaa 4 maalmood baa ka hadhay sidoo kale funding next waan isticmaalnaa iyadoo akoonno kala duwan bay leedahay comment waxaad ka soo eegi kartaa YouTube keenan muuqaalada aan ka diyaarinay akoonnada ay bixiso
funding bbc tan leeyahay iyada farahan ka qaadnay maadaama aanan ku kalsoonayn adeegyadeeda. marka labada kalena waad nala soo fiiri kartaa, adigana wixii khibrad ah nala soo eegi kartaa, commentigana waad nagula wadaagi kartaa wixii khibrad ah ee akoonada ama shirkadahaas ku saabsan. sidoo kale subscribe noo saar, telegram-keena nagu soo biir insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.